waxaa jiri jiray wiil iyo walaalkiisa. maalin maalmaha ka mid ah ayaa wiil lacag leh walaalkiisa yaraa u waday safar si uu u soo baro nolosha faqiirnimada. waxay waqti wada qaateen oo ay marti u ahaayeen qoys iska beeraley ah oo faqiir ah. muddo bil ah kadib wiilkii yaraa ayaa walaalkiisa weydiiyey, aboowe sidee u aragtaa noloshaanse, maxaase ka baratay? wiilkii yaraa baa yidhi, midda koowaad gurigeenna waxaa ku taallo meel lagu dabaasho, laakiin ayaga waxay haystaan webi weyn oo ay ku dabaashaan. midda labaad, annaga waxaan ifsannaa nal, laakiin ayaga waxay haystaan xiddigo habeenkii oo ay ifsadaan. midda saddexaad, annaga cunnada waan soo gadannaa, laakiin ayaga waa ay beertaan oo ay soo saartaan. midda afraad, gurigeenna darbiyo badan ayuu leeyahay oo annaga naga ilaaliya dhibka, laakiin ayaga saaxiibo badan ayay leeyihiin oo dhibka ka ilaaliya. midda shanaad, wakhtigeenna waxaan ku dhuminnaa daawashada TV-ga, laakiin ayaga wakhtigooda waxay la qaataan qoyskooda. kadib wuxuu intaas ku daray wiilkii yaraa, aboowe waad ku mahadsan tahay sida aad ii tustay inaan anaga nahay faqiiriin.